martiilatiyo waqti duubano dabinada iblis laga daahayo dadku taagaye martiilatiyo waqti duubano dabinada iblis laga daahayo dadku taagaye daa'imo wallow dadka yaga hago dibadiyo dalkaba u dabaasamo daadano hadee daa'imo wallow dadka yaga hago dibadiyo dalkaba u dabaalsamo daadano hadee وهاجاك سكسون نقدر نكسن ده وده اللي هو حد نجلس سعتان تلفزيون كإستيان برامج كنا وجين كان كوجرنا هاتنا وحاسيتو صانوجود بين قيبتين حالة الدلك وقيب على برامج كان كوجنا نكفر عن غينه الرميه وجود بيكت ساجن الدلك مانتنا الرمو أديادو حساسي وحسلا يا برامج كدير ده نكسر دونا برامج كان وحاسيتو صين لسه عسين دونا ونيجو عبد النور علي الحاج استوديو أنا برامج كوحمرتي جوا عبد النور ديرو أسجع قراء كسجدو قبل كوقي بري قاسان اسمه ملك وجر عبد النور سبتدي أيو مقالة نيروبي كوسو بندقي بوق عصب أساقو قري بوق أسيان سوكر عبد النور كوريسن دونا عرم بدنا يا سوكر كشة كيسن دونا سوكر دوان السمي امتحان كيس شادي KCC وحيابها كوكر لفين وبوق أسيو قرا أنا وحكي يدين دونا مركو عن كلها كفوان ورئيسي أنا مان تحيسله ورينتو عن جعلها إلى استوديوها كوسو بيو برامج سوكر عن كوسو بيو عبد النور ديرو عبد النور كوسو برامج ككون سلو استوديوها استيان وحرب بلنا منوشك تقفكوا هي عبد النور ديرو قف كان كوجرنين مركو ورئيسين وكاركو بلوش قف كاتاي الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا عبد النور aad baan kaga mahadcelinayaa sida qiimaha iyo qayaha leh aad barnaamijkan ugu martaqaaday kulli sida uu Sheekh Mustafa hadda ka hor uu yiri mar la yiri iska sheekeeyo wuxuu ahaayay biography-ga adiga ka sheekeey waxa ugu dhibka badan ee dunidu ruux kale waad ka sheekeyn karaysaa laakiin adigu iska sheekee waa mid muxuu ahaayay aad u dhibto hasa ahaatee anigu ميهين بروفيسور أما شيخ محوها نين لا أقانو public figure لكن عنوك هادو صواب حيو تودله وحوينو هاد audience كما برشيدة صوماليات أن وقتك أقرب ميو ما أهو لكن حسا هاتي أنا مقعها وحنا هي عبد النور إبراهيم دارو أوجي لكن pen نبلا مركزي يعني وحتى هي متقانا يعني قراقو magac u gooni u leeyahay sax oo inuu ku caan baxo sax oo lagu garto marka Cabdi Nuur Deerow waxaan nahay dadka ku dhashay baadiyaha ama miyiga muxuu ahaayay dadku baadiyaha dhanka xuduudka Ethiopia iyo Kenya meeshii baa xogaa aan ku dhashay ku soo koray waxaan tagay primary school meelaha Godoma Nep waa the farthest part of Kenya meeshii baan wax ku soo bartay deetana waxaan u soo gudbay school Sabunle secondary school oo Sabunle muxuu ahaayay Wajera kiibaan markaa secondary ka dhigtay ilaa iyo waqtiga tan hadda aan maanta joogno imtixaankii aan ka soo baxay okay Cabdi Nuur waxyaal waxaan rabaa inaan gadaal ku celiyo waxaad sheegtay inaad miyigaad ku dhalatay aad ku soo barbaartay schoolnaad ka baratay secondary magaalada Wajeer waxyaal baradii aad nala socodsiiso nolosha secondary sida ahayd waayo sanadihii dambe nolosha isbedelaysa
10 sano 15 sano ka hor noloshii isbedelaysa markaad ku jirtay waxbarashada secondary nolosha sayd baradaad nala socodsiisa والله العظيم وقتيgan ku soo toosnay horta inagu malaha waxaan oran karaa dadka ugu nasiibka xun baan nahay ilaan waqti xun oo muxuu ahaayay waxaynu ku soo toosnay xag jirka qolyahan xag jirka ee shabaabta iyo dhulka intay qabsatay ka loolamayeen صح fikradahan aqaaidkan muxuu ahaayay qalafsan ee insurgent groupka ayaa intay meesha waqooyi bari gobolka qabsadeen ayaa wax alla wixii macallimiin ah oo joogay day meesha kaga soo carareen marka waxbarashadeena aad bay muxuu ahaayay u liidaneed soo marka anagu iskuulkan joognay almost 35 miyay ahayd oo qualified teachers baa hal habeen ka soo carartay marka waxbarashada aad bay u waxyeeleysaneed dhibaatooyin fara badan iyo turanturo nololeed baa naga soo gaaray runtii marka hasa ahaatee waanu u dhabar adeegneen kamaanan quusanin marka waxbarashadu mar un baanu is dhahnay marka yoolkaada ama muxuu ahaayay hanaankeena waxbarasho wad gaari karaysa okay inkastoo dhibaatooyinkaas ay jiraan sidoo kale waxaa sii jira caabuqan hadda covid-19 oo adduunka dhan aad u saameeyay waqti idinka iskuul ku jirteen ayuu adduunka dhan saameeyay taasina waxbarashadiina qaabka u saameysay iyo imtixaanka bal qaabka idinka u baasteen inkastoo covid u jiray macallimiin laan ay jirtay macallimiinta ay gobolka ka soo tageen arrintaas qaabka in saameysay dhanka natiijada danayna wala aad bay inoo saameysay iyada qudheed inkastoo mid anagu aan muslimiin waliba Soomaalidu waxay yiraahdaan aad bay u madaxdagtay waqti inta badan covid-19 protocols una aad baan u raacaynin laakiin waxa inoogu darnaa macallimiinta naga carartay oo meesha kugu soo carartay hasaatee covid-19 aad buu isaguna inoo waxyeelay waxbarashadeena okay Cabdinuurow dhibaatooyinkaasi dhan markaan sii fiirnay arrimaha ku aadan dhanka iyo macallimiin la'aanta arrimaha covid arrimahan xag jirnimada dhalinyarada aad u saameeyay maxaa casharood ka baratay 4 sano iskuulkaas ku jirta daan seegna wallahi cashar weyn baa iga soo baxay waa inaynu horta waaqicaynu joogno maanta runta markaanu ka hadalno waxaan cashar ka bartay horta in si kastood waxyeeleysan tahay ama dhibaato ay ku hayso ee aanay noqon kareynin excuse ay ku noqon kareynin inaad iskuulka kaga cararto ama aad tiraado waxba ma baranin ama iskuulkan aan ka dhacay maxaa sababay macallimiinta iga carartay daraadeed ama covid-19 daraadii baan muxuu ahaayay subject kan aan uga dhacay inaad dhahdo dhabar adeeg baa lagaga baahan yahay qadar alla way in waxa ka dhimaanta dhacaan hasa hata laakiin dhabar adeeg baa loo baahan yahay muxuu ahaayay dadaal baa loo baahan yahay marka ruuxu asaga ayaa marka niyadiisu ay wax walba waa intentionka صح gartaad badan ma santaa Cabdinuurow sabtidii waxaad magaalada Nairobi aad ku soo bandhigtay book aad qortay buugaasi aad ugu macday Pruning the Youngsters dhalinyarada inaad la hadasho caruurtii barbaarintoodii arrimo badan aad ka hadashay runtii xaflad aad u qurux badan ee dad badan isku imaadeen marka buugan aad qortay waxa tahay qof soo dhameeyay iskuulka secondary form 4 dadka inta badan markay secondary soo dhameeyaan form 4 xami badan ay leeyihiin jaamacad angala iyo arrimo noocaas aan galay laakiin adiga waxaad qortay book adigoo form 4 soo dhameysay marka buugan aad qortay adiga Cabdinuurow maxaa ku dhiirigeliyay inaad qorto baldaad noo sheegto ma sha Allah waa su'aal fiican Cabdinuur malaha waa isku magacaan aye Cabdinuur dadku inay ku wareeraan Cabdinuurka ma kan wala wareysanayo mise kan wax wareysanayo aye su'aasha wallahi waa su'aal fiican horta anigu goor hata intaanan imaanin muxuu ahaayay private aan bilaabay ka horan hamigayga wuxuu ahaa inaan wax qoro صح aad baan u jeclaan jiray wax qoritaanku صح primary markaan imaaday from class muxuu ahaayay 6 to 8 wax baan qori jiray marka class markaan soo baasay oo aan muxuu ahaayay yimiday secondary ayaa marka waxa dhacday marka wax baan qoraa oo essay iyo wax baan qoraa macallimiinta marka imaanayso oo muxuu ahaayay meesha iisa xijiraysa laakiin wax la daabacay in wax la daabaci karaayo maskaxdayda kuma jirin basoo daraadeed marka waxaan qoro daaqadan ka tuuri jiray maraha qaar waxaan maqlaa almost 32 pages or muxuu ahaayay 60 pages inaan qoro oo markaan holiday markaan aga baxnana meelaha daaqada ama dustbin ama qashin qubtaan iskaga tuuro ilaan hamigii waan lahaa laakiin ruux igu dhiiri geliyo gacanta i qabto oo ilaa waxaan soo daabac maanan helin ilaa marka alxamdulillah waxaan noqday marka school chairman of the student council or student president schoolka ka noqday
marka maalin baa qolyahan muxuu ahaayay shabaabta markay dhulka kusoo bateen صح oo ilmihii iskuulka ka carareen macallimiintu ay ka fiigtay ayaa markaa daraasad yar aan ka diyaariyo marka meel xaflad oo muxuu fagaar ka hadal صح ayaa markaa la ii weydiiyay la yiri marka chairman of the student council ka waran bal muxuu ahaayay sidee bay noo saameysay maxaa sababay in ilmaha iskuulka ka cararaya maxaa sababay in muxuu ahaayay drugs and substance abuse muxuu ahaayay dhulka kusoo bato صح maxaa sababay in dadku ilmuhu ay wax baran waayeen ama streetka dadka ay aad u socdaan marka hadalkeygii ayaan waxaan ku saladay marka waaqaca markaa jiray oo magaalada tan wajeer iyo sidii aniga aan u arkay marka audience-keygii waxaa kamid ahaa marka professor Leira professor Adam Makina oo isaguna marka aan uma aqaano hay'ad buu u shaqeynayay meeshuu fadhiyay marka si hadalkeygu aad u kurgalay صح wuu dhageystay markii meesha xaflada ay ka dhamaatay kadib buu yimi marka uu yiri marka walaal assalaamu alaykum wa salaam reeba xageed tahay uu wareystay markaas uu yiri niyo you are sitting on a bestseller هيا يعني book baad ku fadhida discover yourself هيا so inaan anigu is ogaadin ka hor hadalkaas ay sameeyay marka صح habeenkiiba qalin qardaasan qaatay markii inaan wax ka qoro wuxuu yiri markaan sidaad hadda arintan in aad uga hadashay waxaan rabaa waxaan inaad qoraal ku bedesho صح dhibaatada in haysa inaad qoraal ku bedeshaan rabaa marka saar daraadeed habeenkii igu dhalatay inaan habeenkii soo joodo oo muxuu ahaayay waxaan qoro soo diyaareen marka research sameeyo markaas uu yiri sidaad adiga islaamic kale waxaan uu islaamisaysi garay صح ayaan aad ula dhaqay buu yiri markaas uu yiri qora habeenka ma bilow habeenkii aan bilaabay marka anigu isma aaminsanay waxa isleeyahay war cunug hada foofo secondary ku jiro wariyaa wax ka dhageysanay ma xigmadaad ku hadli karaysa marka professorkan weyn oo maasha Allah jaamacad dibadda ka soo baxay markaan arkay malaha waxaan is dhahay niyo waaba amaad wax ogtahay هيا marka saa daraadeed baa muxuu ahaayay qalin iyo qardaas qaatay waxna waa qoray hasaatee marka qoraalku aad igu dhiirigelay Soomaaliduna inta badan ma aha dadka wax qorqoro ma aha waa oral society bay nahay siday pastoral community aanu nahay dad waxaan wahay cod kara صح orators odayaasha sida wax loo garamo iyo muxuu ahaayay sida wax loo hadal aad baan u naqaan سفيان laakiin hasaatee hal ku dhig ama hal heysyo ama hal qabsi tiraahda jirto hadana dhaqanka Soomaaliyeed kamid ah wixii la qoraa qoruma hare muxuu hadalku qiimo leeyahay hadan ayuun ba dhahay soo taa daraadeed marka hadalka markaad wax qoraydo ama muxuu ahaayay qalinka aad wax ku qorayso ama hadalka aad afka ka dhayso kala nuxur way xataa isku nuxur ma wuxuu miisaan leeyahay markaad wax qorto ama aad akhriso ilaan jiilka dabad wax u qoraysa nin waliba wuu akhrisan karaya laakiin waxaad meesha ku hadashay hadba sidaad muxuu ahaayay aad runta u taabatay waxay noqonaysaa marka wax la iska sheego oo iska mala awal iska noqonaysa marka qoraal waxaan rabay marka in dunida maanta ama dhibaatooyinka jira ayaan qalin ku xallin karayno marka saa daraadeed waxaan isiri marka wax qor wax bilow marka 3 sano iyo wax saas ay ugu qaadatay in muxuu ahaayay waxa kan baaro kitaabadan islaamic ee scholarska muslimiinta iyo muxuu ahaayay psychology aad baan marka wax u akhrin jiray aad baan wax u akhrin jiray inkastoo iskuulka dadka ay buugagta subjects la baranayo biology chemistry dadka ay aad u akhriyaan anigu waxaan ka doorbiday inaan akhriyo buugagta psychology ama cilmi nafsiga aad u akhriyo marka Cabdinuurow waxaad sheegtay professorka ayaa ku dhiirigeliyay sidii ayaad buugi ku qortay marka aad professorku ku dhiirigeliyay iskuulka fasalkeed ahayd labo teeda kan waqti ay ku qaadatay inaad qorto iyo caqabadooyinka barada noo sheegto kolkaasi form 3 baan ahaa malaha tamtu meelahaas ay hayd marka habeenkiiba way anigu markii hore wax iska qori jiray markaas uu yiri niyo wax qor bilow marka habeenkii baan bilaabay ilaa inta dhaxdooda marka hal habeen baan ma gamin runtii mar baan dhigay ma u noqon doontaa wax soo saar ma noqon doontaa oo waxa lama akhrin doona marka wallahi runtii muxuu ahaayay safarkan wax qorido sidiisuba ma ahaan mid sahlan mu ahaan صح carqalooyin badan baan ka kala kulmay khaasatan bay'adan aan ku noolahay wajeer dhibaatooyin fara badan baan kala kulmay ma ahaan wax iska raqiis ah maadaama meelaha aan ka soo baxnay xaafadda markaan u nimi ilmo dhalinyaro ah jiro oo xaafadda jooga soo bax
marka inta badan lama dhahayo marka waxay leeyihiin ma waalantaa niyo waxaanad akhrisaa maxaa haye ya mathematics baa ku yeel maxaa ay buugagta kale ku yeesho mar waxaanad qoraysa maxaa niyo waala rabtaa dadka markii waalanayeen ayaa waxaa la yiri buugagta iyo waxaan ku kacaan soo ninkan wax akhriya miyad waalataniyo marka tuulooyinka markaan aada xataa buugagtan meelaha ka gaday jiray oo waan akhrisan jiray marka inta badan waxaa la yiri niyo waala rabtaa ma u dhow waxaan aad ka u akhrinayso maskaxdaada saameynayaan waxaan iska daa marka laptop aan mid walaalkay ka qaatay ayaan wax ku qori jiray maraha qaar wifi iyo waxaasna isma isticmaalaynin laakiin data uu ii gadi jiray marka waxaasan marka aad ka u baari jiray dhibaatada maanta ka yeeshay dunida yeesho dhibaatada muxuu ahaayay dhalinyarada ay maanta jiilkan iyo muxuu ahaayay siday waalidiinta u gabeen maxay tahay hooshooday oo ababkii ilmihi waxaanan marka aadka u baari marka alxamdulillah waa tii adiga shalay tadarhat aan soo bandhigay wixii ayaga ahaa ilaa iyo shalayba ma aaminsaneen waxaan inay wax rumiye laakiin markaan arkay scholars sida Ibrahim Ledome deputy chief qaadiga Sheekh Sufyaan iyo culimo aad u waaweyn wixii ay muxuu ahaayay si soo gorfeeyeen ay arkeen marka wixii inay wax soconayihiin ay marka dhiiranaan igu beerantay marka waa saas Cabdinuur sidoo kale markaan fiirna waxaan markaan joogay xafladda buugga lagu dahfuray markaan dhageystay hadalada waxaad aad u soo xigatay culimada Soomaaliyeed aad u soo xigatay nin dhalinyarana waa tahay marka dhalinyarada inta badanna markaad fiiriso daadaada inoo waxay aad u xiseen waxyaalo kale inoo in ma xiisayaan inay kitaabka quraanka iyo waxyaabaha loo qorin aqriyaan marka adiga maxaa ku dhiirigeliyay in nin culimo oo meel fog jooga Norway salahan inaad maanta ku noqdo qof mentor inaad daada sheekhaas ayaan aad u dhageystaa sheekhaas ayaan inoo muxaadariisa dhageystaa maxaa ku dhiirigeliyay bardaad noo sheegta wallahi waa su'aal cajiib su'aal cajiib waa sida horta runtii Sheekh Mustafa Allah dhowro Allah xifdo waa sheekh isku darsaday muxuu ahaayay cilmigii diineed iyo muxuu ahaayay shariicada iyo dhanka kale waaqicna aad ula socdo la jaan qaado oo si fiican ula socdo waxa maanta shalayto dhacay dunida dacaladeeda ka dhacay uu ka warqaba aad buu u ogyahay waa intellectual marka sida uu xikmadiisa iyo muxuu ahaayay u diyaarinayo topic uu ka hadlayo iska ma aha ruux iska soo istaago meel fadhiisto dharrac waa iska siima aad muxuu hada meel maan sheekha aan ka dhageysanayo muxaadaro uu dhahayo yani dadka waqtigooda ha qaadanin iska ha u maleeyay you don't just take for granted ha u qaadanin dadka inay muxuu ahaayay dadka inay waxba ka siinin hada ilmaha class 1 camal miyad wax u diyaarisa was kaga tagaysaa wax yarko 1 2 3 iskaga qoraysaa laakiin sheekha wuxuu yiri hal muxaadara ama 40 minute qaadanayso ayaa waxaa laga yaabaa uu dhahay 6 months inaa soo diyaari 6 bilood inaa soo diyaari laga yaabaa markan and the way he substantiates explicitly like topic muxuu ahaayay tarbiyada soo uga hadlay siyaasadda soo uga hadlay dhaqaalaha soo uga hadlay arrimaha bulshada hoose sociology soo uga hadlay marka waxaas bay ugu dhiirigelay marka inaan u koorgalon aad u dhageysto malaha waxaan u malaynayaa muxaadara uu soo dhigay aan sheekhaas ka dhageysanin waa hal iyo dhif dhamaan oo dhageystay waan dhageystay aad baan u dhageystay dhageysi kaliya tamaa dhageysi qoraa tamaa waan qoraabo markaan dhageysto waan qoraal baan u bedelaa buugan hadaad akhriso ama nin Sheekh Mustafa ku xirnaan jiray uu akhriyo buugan waad ba ka heli karaya eriyadii wad ka dhadhamin karay oo Sheekh Mustafa af Ingiriis ku qoray marka sheekhan ka dhigay that is why acknowledgement part-ka Sheekh Mustafa ugu daray buuga marka asagana kolkii buuga aan daabacayay baan email-ka kala marka mid aynu isnaqaano ustaadkii ayaa muxuu ahaayay email-kiisa si fiican baan marka u wada xiriirnay masha Allah marka aad baan u wada xiriirnay wuuna igu dhiirigeliyay aad buu igu dhiirigeliyay inaan waxa kan soo saaro asana ku acknowledgement garay marka dhiiranaan baan helay sheekha kale sheekhayga Sheekh Saciid Raage isana aan kulanay ayaa isana buugi akhriyay wuu turxan bixiyay marka masha Allah marka saadaradeed sheekhaasi ma aha dad tulay xigaal Soomaaliyeed baan nahay laakiin tulay xigaal cirsi iyo muxuu ahaayay hasha midna ma nihin iyo tol laakiin sidoo macnaha de hadaladiisa codkarnimadiisa iyo sidoo waxa kan u soo diyaarinay iyo siday run uga tahay ayaa marka aad ii soo jiidatay waxaan arkay markaan ninkan fiirso marka quduu ii naqtay quduu masha Allah aad ba maastay aan ku soo noqono buugaan aad qortay
waxaan rabaa bal cabdinuurow si kooban mawduuca buuggan uu ka hadlaya bal inaad nala socodsiiso. والله horta cabdinuurow buugu horta haddii in yar dul istaago waxaan magaca buuga waxaa la yidhahda Browning the Youngster. Browningku malaha waa agriculture word. wixii dhulka laga soo saara. ha haddaad istiraahdo waa sarbeeb waan sarbeebi haddaad istiraahdo meel maanta beer ka samayso arsaaqdaad cuni lahayd iyo anfacadaada ka raadso beertaasi haddii aan la abqaalin oo aan ininya lagu daadin oo aan abqaalkaasi biyo lagu shubin oo la biyeynin oo aan muxuu ahaayay cayayaankii cunayay laga saarin miyay eega bislaani maya ma bislaanayso marka saa daraadeed ayaan markaa u isticmaalay Browning the Youngster markaa cayayaanka yar yar ee muxuu ahaayay dhirta cuno iyo muxuu ahaayay pest and disease-ka oo marka geedkii yar ee hadda soo korayay oo soo kobcayay in laga jaro oo muxuu ahaayay loo reebo muxuu ahaayay si uu healthy growth u yeesho sax saa daraadeed ma markaa u isticmaalay Browning the Youngster yani wixii xun ababka toosan yani ilmaha la kobciyo caruurta yar yar oo sidoodaba jidka saxda ah lagu toosiyay ayaa muxuu ahaayay macnaheedu ay tahay marka Browning the Youngster marka haddii aan dul istaago xogaago cutubka ugu horeeya buugaygu waxaan ka dhigay markaa the core responsibility of parent as pioneers yani xilka ka saaran parentigu ee ka saaran xilka ka saaran parentigu yani inaanay ahayn wax iska raqiis ah sideedaba waxaa la yidhahdaa ilmuhu hibo uu ilaahay bixiyo صح ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا سما يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا hibo uu ilaahay bixiyo sideedaba marka bil aadamku inta badan waxa la yiraahdaa nicmadu markuu uu waayo uu tawaawul runtii intuu haysto ma tawaayo maanta hadii biyaha maanta ku horeeyeen صح oo aad weyda umbaad dareemi karaysaa qiimaha ay ku fadhiyaan cuntada markaad weydo umbaad dareemi karaysaa caafimaadku صح markaad weyda umbaad dareemi karaysaa si fiican inuu caafimaadka muhiim yahay marka saa daraadeed markii ilmuhu ninkan lahayn oo ilmo aan dhalin umbaad dareemi karaya qiimahooda runtii marka nicmaduna sideedaba waxa la yiraahdaa ilmaha waxay qurrato acyun noqonayaan ama comfort of the eyes ay noqonayaan markii muxuu ahaayay ay tarbiya fiican iyo abab fiican ay helaan ayay marka ildoogsan noqonayaan kolka dambe marka waxay noqonayaan marka wax adiiba cadaab kuga qodxaan bay noqonayaan marka soo daraadeed marka waxaan is weydiiyay marka buugaagtaan akhriyay waxaan is weydiiyay why a parent exalted in the Quran waxa Quraanku dhaxdiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala meel badan buu de lagu sharfay waalidiinta ayaa leeyahay waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana akamida wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa wasayna al insana biwalidayhi ihsanan bad marka waxaan is weydiiyay inta badan why are these people exalted in the Quran marka su'aashu waxay ugu dhalatay waxa way marka dibka jiro ayaa waxay tahay dadku kulli way isla ogyahay mid cunuga yar markuu dhasho yani u sheegis ama xasuusin uma baahno waalidka inay muxuu ahaayay cuntadiisa oo cunuga ay koriyaano naxsanaado weynaado hadduu xanuunsanayn in dhakhtarka la geeyo oo muxuu ahaayay daawo loo doono iyo hadduu hada caabuq soo yeero sida polio camal inaysan dhakhtarka lagu celiyo vaccination marka saddexda walxood waxa way feeding curing iyo vaccination waa jirkay ku saabsan tahay waalidka mid walba xataa si doonto uu liidan yahay waalidka uu ka warqaba saddexdan shay marka laakiin dibka jira wuxuu yahay saddexdan shay hadda sheegaya iyagoo spiritual buu u baahan yahay cunuga feedingki muxuu yahay cuntadan biisadan aad ku guraysa ma ahayn wuxuu u baahan yahay feeding aqaa'id fiican inaad ku canqarisid u baahan yahay spiritual inaad feed garaysid u baahan yahay صح ideologically inaad feed garaysid u baahan yahay religiously inaad toosiso u baahan yahay marka cuntada uu cunayo maxaa way marka aqaa'id fiican in laga dhaadhicisho cunuga yar hadduu ka waran qaado oo reehbil waxuun ama cuqdad aad ku beerta ka war
hadda si xun baad u fiid garaysay soo ma caqaa'id xun baad jirtaa haddana socoto sida cilmaaniyadda camal waxaa jirta kuwa kale casraaniyad laleeyahay soo saa daraadeed marka waxa waaye waqtiga aynu joogno topigan marka waxaan oga hadlayay marka xilka ka saaran صح waalidku inay ilmaha tarbiyaystaan oo ababiyaan marka saa daraadeed baan marka usoo qaatay marka responsibility of parent as pioneers because dadka ugu horeeyay ee dunida tan maalintu iimaanay cunuga kan صح ee ugu horeeyay gacantooda usoo galay waxa dadkan way ها والدك ha iyaga way marka iyagan tusinayay xil weyn baa saaran marka waalidku iska dhal maaha اسكال المها hadda matqaana maqsadka uu weyn ee liisu guursanayay guriga iyo guurkuba waxa caruurta tan صح in la korsado marka saa daraadeed baan markaa topic ugu horeeyay saas ka dhigay اوكي ان كان دحقلا arrintan ku saabsan tarbiyada caruurta inoo maxaa uu soo xulay adaan ayna ha xulashadeedu maasha Allah waa su'aal idan qatar هي horta runtii anigu ma ihi sida aan horeyba u sheegay sheekh ma ihi صح nin caalim ah oo professor ma ihi nin ku takhasus oo cilmi nafsi ah ma ihi nin aad hadda u xigmad ba ama da u soo joogay ma ihi اي laakiin abana badid aabana ma ihi oo weligayna waxbaan اي dhalin laakiin kullay cidina ii diidi mayso inaan dadkayga itaqullah yiraahdo absolutely kullay cidina ii diidi mayso wax kan xumaan baan u yara arkayay in la yara hagaajiyo صح ay ku san yihiin inaan dadka dhaho ma cid ba ii diidi wax ku diidan marka saa daraadeed anigu waxaan qoray hadda ma aha wax cusuban oo weyn ma aha buurmo soo waxaan hadda aan qoray waxa wax iska jiray un baan xogaago bulshada markaan eegay un baan wax yar yar ka soo yara qaatay ka soo xushay saa daraadeed baan marka meesha dadka iskugu keenay soo marka tarbiyadu ahmiyadeeda waxaynu hadda fadhi iga bixi karnaa runtii ahmiyad weyn bay leedahay way baxsan tahay waqtiga kan hata kuma filno marka saa daraadeed hadii aynu soo qaadano mar walba markaad u kurgasho bulshadaynu ku nool lahay maanta sida hadda waqtigaynu joogno markaad fiirisid siday dhalinyaradu jidkii fiicnay uga tasoobeen siday waalidiinta ugu dhaceen muxuu ahaayay doorkoodii ababinta sida ay muxuu ahaayay ilmaha kan social media habka u qabsadeen ee sida qaldan ay u isticmaalayaan صح su'aasha tan munaasaba maba noqon lahayn ba sidaas aan isleeyahay in muxuu ahaayay la weydiiyo ilaan haddii aad information ka aad fiirisid current situation waaqica aad baa loo baahan yahay tarbiyad laga yaabo buuga kan inuu intended muxuu ahaayay wixii loogu talagalay intaan ugu talagalay uu gaari waayo laakiin xoogaa hoga tus iyo tusaaleyn unbuu macnaha aan usoo qaatay laga yaabo inaanu tarbiyada guide uu noqon laakiin waa un muxuu ahaayay tusaaleyn ama ifafaalo uu yahay soo saa daraadeed ahmiyada tarbiyada ay leedahay waqtiga aynu hadda joogno waa mid aad utaban ha gartay aad baad maastay wali waxaad nagala socotaan telefishinka STN barnaamijkeena hoggaankan ku jirna barnaamijkana maanta waxaa martinigu waa Cabdinuur Zero asaga wiil dhalinyaro ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari dalkani Kenya qaasaan magaalada Wajeer Cabdinuur waxa uu qoray buuggaas asagana uu targalay in uu dhalinyarada iyo soo kalena waalidiinta soo kala hadlo muhiimadda ay leedahay tarbiyada carruurta iyo waxyaalo badan ee bulshada ka jiro inuu kala hadlo maanta iyo soo kalena uu warbixinaya buuggaasi waxyaabaha ku jiro iyo mowduucyada kala gedsan asaga uu soo qaatay sababaha asaga mowduucyadaasi uu soo qaatay maanta barnaamijkan ku wareysanayna barnaamijkan halkan wali waxaan la socodsiinay aniga Cabdinuur Cali Alxaaji Cabdinuur buugga aan arkay Ingiriis ayuu ku qoran yahay marka dad badan oo Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan Cabdinuur waa nin Soomaaliyeed oo qoraa oo arrimahan waa arrimo muhiim ah loo baahan yahay bulshada ka jira luqadan ku hadlayno luqadda Soomaaliga maxaa keenay inaad xulatay luqadda Ingiriiska maxaad u qorwaysay luqadda Soomaaliga ما شاء الله وسؤال آد وفعل ونمر ولا بالله ما لقوا ويدين دور أي ما أنتون قويدية ما شاء الله سؤال شو هرت واحد هاي نيو أنا هدي إنه نهي سوالكيان صح دبا إنه يست صفي عن دبا إنه يست وإنه قرقار أبا هنا هي هرتو حلاشة بوجا إن حيث إن لقد في إنجليزكم ما هاي إن أهمية وين سينا وأن لا يهي إنجليش بحوجاجو ساس أفي عن أما أن قيمة ويراي معه لكن سؤالي waxay tahay af Soomaaliga aan ku qoray ma horta systemkii laguma fikirsiin korka horta iskuulka markaan dhiganay primary secondary waxaan hadii systemkii aan wax ku soo bartay oo aan lahaa af Soomaali horeyaan ka qorlay af Soomaaliga marka wuxuu Kenya ka yahayba wax muxuu ahay biyaha igu soo qabo muxuu ahay alaabta tan iisoo iibi inta u socota halahan yar yar xaafada lagu soo koob marka national language ka English ki wuxuu noqday marka mid science ka lagu barto cilmiga lagu barto
يعني wax lagu baaro lagu baxtiyo buu noqday marka af Soomaaligu anugu iima ahayn mid aan wax ku fikir hadba ku fikiro hadii aan isiraahdo af Soomaali kale ku wad buugan hadda maanta interviewda waxaan aad u jeclaan lahaa in af Ingiriis ku baxla lan malaha buug af Ingiriis buu ku socon laakiin af Soomaaliye hadii leeyahay af Soomaali ma baa midkii hore wax lagu soo bar labaad mid basaan leeyahay mid labaad waxaan aan leeyahay af Soomaaliga horta naxwu leeyahay naxwihiisu iyo muxuu ahay suugaantiisu ma baranin hasa ahaatee af Soomaaliga marka wuxuu u baahan yahay hadda in laga yaabo in qoraal yar iska qori karo af Soomaaliga haba qaldanaadeen laakiin dadkaynu wax u qorayno fiirbal ummadaynu wax ku qorayno waa ummad islaamiya sax Soomaali kaliyeed ma tarbiyadana dhibaatadeeda Soomaali kaliya ma hayso waa muslim ko dhan globally sax saasar ay u haysaa soo saadaradeed marka inaan dhaxal caalami ka qayb qaato oo aan solution laga yaabo buugan inuu noqon doono a salvation to this all maxay dhibaatada hadda ka taagan ee bringing ka taagan marka saadaradeed baan af Soomaaligu aanu noqon laakiin insha Allah taala buug af Soomaaligu ku soo bixiyaa professorkii hadda aan sheegay ayaa tafsiirinaha buug af Soomaaligu ku socda chapter ka labaad saddex meelaas u mariyaa insha Allah mid dhow sana daawacidiisa wan muxuu ahay bandhigiis waan u joogi doonaa marka af Soomaaliga ku soo bixi doona insha Allah gartay marka buugaanad qortay dhowr qodob ay soo qaatay Cabdinuurow waxaan rabaa inaan fiiriyo cudubka saddexaad waxaad soo qaatay welcoming the new baby in la soo dhaweeyo cunugu markuu dhasho marka mawduucan maxaad gadaal u marisay adigu bilaawaysay because inta badan marka la eego cunuga yaa fast la soo dhaweeyni adeen tarbiyada la sii galay marka gadaalaad marisay maxaa keenay dan siigan Allah dhalish ugu weyn horta ka soo yeerto malaha waxaan leeyahay dadka akhriyay buug ay ka mid tahay si fiican baadna u akhriday haye dhalish hortaadana la ii weydiisay su'aashaas marka fagaara ama meel aan ugu jawaabo ayaan xooga diideynay haye su'aasha horta buuga aniga qora sax aniga ana defend garina adiga difaaci aniga difaaci haye soo saadaradeed horta new coming welcoming the new coming baby dadku waxay yireen maxad ugu bilaabi weyday ilaan markaad cunug dhashay kadib un baa la tarbiyay laakiin aniga qora ahaan ma aaminsan haye maxaa aaminsan tahay waxaan aaminsanahay horta su'aasha aan isweydiiyay markaan outline ka buuga marka la diyaarina outline la qoro outline ka markaan qoreen isweydiiyay habarnimada kulmay bilaabatay horta haye when ay muxuu ahay madaxweynaha u bilowda anigu waxaan aaminsanahay tarbiyada inay ka horeyso xataa cunug inaan u dhalan ka hor ay bilaabatay uurka markuu ku jiro ayayba bilaabataaba haye tarbiyada ay bilaabatay iyo sida loo toosin lahaa waxa la markaan biology ama waxa jira waxa leeyahay the mother's feeding habits has salutary effect on the child يعني behavior maamada shucuurteeda iyo emotionkeeda iyo xanaaqeeda iyo muxuu ahay depression ka iyada dareento wuxuu saameyn si togan iyo si taban uga leeyahay canuga muxuu ahay ilmaha uurka ku jiro soo saadaradeed marka wuxuu u baahan yahay marka roolka doorka imaamada ciyaaraysa muxuu ahaa tarbiyada waxay bilaabatay inay is ilaaliso kolkay dareentay inay maxay tahay xaamilo ay tahay sax soo inay is ilaaliso kolkay tahayba waqtiga kale wax weyn uma banaano in muxuu ahay anigu hadda dadkanaga ma dhahayo hadda ma aha dadka sigaarka caabo haye ragga cabo Soomaa laakiin bilcanta hadda waa cabta mid laakiin hadii cabil la dad cabo way jiraan Soomaa hadda maswaxilida dad baa cabo sax dib bay u keensataa caafimaadahan cunugaas ay dib u keensataa hab fikirkiisa ay dib u keensataa hatta hadii xanaaqdo oo xanaaqo ka bato cunugaas way saameynaysaa hatta sida eedi wax cuntada ay hatta cunayso dhibaatada hatta dhakhtarinta waxay sheegaan cunto qaar oo cunugu muxuu hayay psychologically halayna sajir soo saadaradeed marka waxay bilaabataa the mother has to provide a congenial environment يعني an environment oo fiican inay siiso marka odaygana inuu ka xanaajiyo maamada hada waqtigaas inuu u dhabar adeego u dulqaato waa si fiican u dulqaato waa sagaalka bilood intay ku jirto cunuga dhalanayo ilaa haduu ka xanaajiyo aba kama sirsiyo ma dhacaya cunugii wixii way saameynayaan soo hadii depression taa daradeed anagu dhaqankayba ku jirta maalinta inay joognay baadiyo ay waxa la dhihi jiray ma heblayo xaamile wax culays yani qaadan haye heblayo xaamile ha ka xanaaqsanin soo markii si fiican soo saa daradeed xanaaqo iyo muxuu ahay depression iyo sida iyada u fikirayso
cunugaas ay marka dhibaato u keenaysa haye soo saa daraadeed baan markaa aan dhahay markaa welcome in the newborn baby markuu dhashay kadib haye ku qolyaha psychology waxay leeyihiin 9 bilood jir buuba yahay cunug markuu dhalanayba haye 9 bilood buuba soo qaatay haye uu jira is 9 months of age ayda soo markaas ka hor 9 bilood buuba jiray asagoo jiray xafa ay imid soo dabeecadii iyo sidoo u fikri lahaaba wuuba igu dhameystirantay bay qaar leeyin marka saa daraadeed baan topican gadaal u mariyay marka topican gadaalaad marisay dad qaarna waxay leeyihiin Cabdinuur oo ku dhaliilay waxay leeyihiin nin dhalinyaro tahay oo shalay iskuul soo dhameeyay waxaan oo macluumaad information intaad ka keentay su'aashaas waa waxay badan tahay waa aad baan uga shaki qabay in la weydiiyo laakiin professorka iga u dhiiranaa buu yiri ka baqan soo saa daraadeed horto kama turjumayso anigu waxaan akhrin wax cusub lama imin si fiican waxaad cusubna dadka ku cusub arrin ugu ba ma keen wixii jiray un baan xogaa af Soomaali ana maxay af Ingiriisi waxaan wax jiray there is nothing in muxuu ahay new under the sun صح wax cusuban ma laha soo tarbiyada xogaa un dadka information close attention kood un baan ku soo jiiday mooyane soo marka kama turjumayso ana ilma qaba waxa kan soo arkay experience maaha aqoonta sideedaba maaha si anu ku weydiiyay way weliga aad ma dhashay maxaa uurka dhakhtar hadaan u tagay ka waran aan iraada ka waran aad ma dhashay aad ma hadda ka hor uur qaaday maxaa uurtu u sheekeen ya information ku hay dhakhtarka ha dhakhtar buu haya wuu akhristay soo ma soo akhriska buugagtaan uu akhriyo baa waxaan ka soo xushay mooyane anu ilmo hadda ka waran ma koodin karti aad badan waasan tahay haddii aan si wadno isla mawduucada iyo waxyaabaha ku jiro buugga haddaan fiirno waxaan rabaa inaan fiirno qaradaadka waalidiinta Soomaaliyeed ee maanta ay sameeyaan bal haddaan fiirno iyo sida lagu sixi karo inuu buuggaadu ku jira laakiin dadka bal uu faa'iideeyay sifaha qofka fahmay uu maanta bal inuu dhaxwal buuggaas aan rasada aan si akhriso bal qaradaadka ay sameeyaan waalidiinta Soomaaliyeed ma sha Allah waa su'aal aad u fiican anu hadaynu Soomaalinahay horta waxa la yiraahdaa sheekan soo xasuusta horta su'aasha soo xasuusta oo marna murti iyo madadaalo labadaba isku jiro sax xidhan waagi hore oo baadihu iyo magaalada ay aad u kala fogaan jireen hadda waxay kullu isku qasmayaan ayaa waxa dhacay baa la yiri gabar yar oo Soomaaliyeed baa la guursaday markii la guursaday ayaa muxuu ahaayay habeenkii la gurigeeyay gabdhaha aad bay u xishoon jireen sida haddaan tan ma kuwa hadda indhaha ka soo dhigay soo aad bay u xishoon jireen marka waxa dhacay baa la yiri xishoodkii lagu ogaay subaxdii markay soo baxday idoo qaawan baa soo baxday oo aanay dhar wadan oo sidii hooyadeed ku dhashay ayaa intay soo baxday gambaaska geela meeshii lagu lisay bay soo fariisatay markaas aabihii iyo sodax iyo muxuu ahaayay maamadii iyo ummadii meesha wada tuuna bay soo dhex fadhiisatay hadana si kada loobsatay markii kada marka aabihii soo istaag warna haysastur war balahish isastur markaas cimaamad intuu soo qaaday korka saaray soo markaas fiiri marka maxay astur markaan ilaahay aabe maxaa iska asturay wixii 9 sano ee muxuu ahay 20 sano qarinay xalay lagu dhaqtay oo maxaa qariyaba soo saa daraadeed macnaha su'aashaas sheekadan waxaan u keenay Soomaalidu dhaqankeeda horta 90kii 190 waa saxan yahay laakiin dhaliilo baa jira oo aynu qarinhayn صح وأنه ما أنت إني نشاع كقادنا يباح صار درادة عنقو مركو دشوا وحجر قلادات إنه صنعنا لكن كورت الصومالي أنت بدأ محلي ده صح ولكن بادية وإسكفي عيه لكن wrong application كي إسقى هاي بادية إنه كان أنت لما جان قاضي كرمحوه هاي إن واقع ما تجرى صار نبكي هذا ما أنت كتاجن مقالو يمكن dhibaatooyinkiisa way badan yihiin baadiyaha markaad joogto ugu shaki qabtid cunuga kan inuu bagaaloobo oo muxido oo gaalimo ugu shaki qabtid inuu bangi iyo muxuu ahaay drug and substance abuse u bilaabo ugu shaki qabtid inuu muxuu ahaay cilmaaniyada iyo qolyahan uu raaco laakiin magaalada markaad joogto loo lamba jiro aqaa'id kan feminist baa jiro toxic muxuu ahaay ideologies baa jiro soo markaa inaan mar waliba ku fooganaano wax tarbiyada waa wax loo baahan yahay marka soo markaan inaynu ogaano marka tarbiyadu oo ay noqoto waalidka mid uu ka warqabo marka soo daraadeed marka dhibaatada aynu sameeyno ka Soomaali ahaan waxa weeyay inaynu isbarbar dhigno ilmo sax inuu isbarbar dhigno oo aynu dhaxno heblow baa ka fiican ama gabadha aan dhaxno wiilasha aad ka fiican taasi waxa la inta badan psychological cunug way dhaawacaysaa
waxaa dhacaysaa markaa inay ama gabadhaasi ama aan dhahno cunugan waxaa ka fiican muxuu ahay kan jiiraanka ka fiican soo saa daraadeed markaa waxaan sameynay markaa isbarbar dhigu ilmuhu qalbigu ka dila marka waxaa lahaa ilmuhu markii yar yihiin psychology qolyahan psychology waxay leeyihiin qaybta wax filta garayso wax miirto صح ma laha soo waxaad adigu ku tiraahdo cunugaasi wuxuu qaadanayaa wuxuu u qaadanayaa inuu yahay ruux laga rooniya ايوه oo laga roon oo aan waxba qaban karin oo muxuu ahaay turaanturooyinka iyo waxyeelooyinkan iyo muxuu ahaay dhibaatooyinka dunidaba aan wajahi karin buu noqonay marka mar waliba wuxuu isku dayayaa inuu ku noolaado comfort zone soo saadaraadid marka isbarbar dhigana aad ugu fiican صح marka xataa aanu joogno iskuulada waxa leeyahay anu mathematics baa aad ugu xumaan jiray marka hadii la yiraahdo ka waran mathematics buu xigay heblow baa ka fiican marka inta badan ama la yiraahdo marka dhibaatadaas aad ka noogu weyn oo la leeyahay marka Soomaalida aad ugu badan oo ilmaha cunuga kale lagu barbar dhigo labaad waxa jira hadana gulgulka ama ilmaha lagu baqan gariyo aabaha aan ku sheega hadii aad waxaad qaban weydo aba haddaad waxaan qaban weydo macalinkaada iskuulkan ku sheegaya hadda markaas hadii aad waxaan qaban weydo sida dhahan weydo macalinkaada ee macluumaadka ku sheegaya ee dugsiga dhiga soo saadaradeed marka adigaba ku dirihay aabihii iyo macallimiinta macluumaadda ku dir xisaab ee wax baray marka quraanka aad baan cadeynaysaa indirect limo ogaan leedahay soo saadaradeed marka inaynu gulgullo ya waxay ku abuuraysaa marka dhaawac weyn oo qalbiga ugu imaado ay dhibaateynaysaa midda saddexaad ee aad ka uga badanahay waa eriyada dhaawaca qalbiga ama eriyo taban hadii aan af Soomaaliyeed صح oo aan dhahno wax ma tare doqon baa tahay jahil baa tahay waa laga fiican yahay waa fool xun tahay samooy soo hadii san leeyahay cunugan wax walba ku shubto weelahan buu u haynaya sida hadda sheegay meesha wax filta garaysa maskaxda ma qabo wali umay korina umay kobcin soo waxa dhacaya marka inuu wax walba qaato soo hadii doqon tiraahdo asal doqon buu qaadanaya waaba doqon baa tahay ba noloshu buu ka dhacay marka noloshu buu ka dhacay dhibaatooyinka marka ma wajahi karo mar waliba comfort zone buu ku noolanaya waxa dhahday fulay baa tahay fulaynimadu waa aqbalaya marka صح illa iyo life span kiisa intuu nool yahay fulay buu isu malaynaya hadii doqon lagu yiraahdo doqon buu isu malaynaya soo aydan ilmuhu kuma fiicno marka dhibaatooyinka aynu aad ku isticmaalna waa kuwaas mid kale aynu ku soo gunaanada waxa qaylada inaynu ku qaylino aynu dhan waa maxay waan dhan ku qaylino dhaqankeenana waa xoogaa cunfi iyo muxuu ahay gacan ka hadal iyo wax intaas cunuga wuxuu ku weynaanayaa dhibaato kasto imaado in lagu xalliyo gacan ka hadal iyo cunfi iyo violence buu u qaadanaya hadii aad ku sameeysid waxa xun cunuga maaha laakiin shayga uu sameeynaya waa xun ha gartay Cabdinuur aad baad u maasantay gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay wax ka yar waxaan haysanaa 3 daqiiqo marka waxaan rabaa Cabdinuur buugaan aad qortay dad badan waxay isweydiinayaan halkeen ka heli karaa waa 2 buuga imsa lagada lacagta wax free maaha lacag ay gashay in buugi la soo daabaco oo la diyaariyo marka bal noo sheeg meelaha dadka ay ka heli karaan in fact yar aan saaxiibana oo joogo dibida ayaa hadda message soo qoray marka wuxuu leeyahay niyow waxaan arkay buugi aad soo dhigtay wax wali intaan ka helaa wadankana ma joogo marka waxaan ku yiri marka niyow ninkii waa isla fadhinaa waa wareysanaya hadda marka wuxuu yiri niyow wareysi marka dambeeyay bal ii soo dir wareysi aan dhageysta aan ogaado bal buug wax ku jiro marka dadka aad bay u xiiseynayaan buuga inta la gado iyo meesha laga heli karo daan nigno ma sha Allah horta buuga hadda un baa la daabacay inuu soo bandhignay waa adiga ogaay sax marka insha Allah hadda wixii ka dambeeyo sidoo wadaadka u sheegay xataa inaynu waxaan rabnaa geeyiga Soomaaliyeed meelaha Soomaalidu degto ka bilaab muxuu ahay Djibouti ilaa iyo Xamar iyo Soomaali iyo Soomaali galbeed iyo Kenya in hadda ku nool meel waliba in la geeyo waan rabaa waliba haduu soo baxaa af Soomaali waxaan markaa Nairobi dama laga heli karaa Garissa waa laga heli karaa Wajeer iyo muxuu ahay dhanka waqooyi bari Mandera waa laga heli karaa marka hadda wixii ka dambeeyay marka connection waxaan u sameeynaa dad meesha joogan insha Allah la xiriirina marka ninkii leh waxaan u maleynayaa dibadda laftirkeed in iyada laftirkeed u kurgeli doono qorshe lagu dari doono gartay marka Cabdinuur baaqad u dir lahayd daawadayaasha iyo dhalinyarada maadaama qof dhalinyarada tahay buugan aad doonaysid inaad dhalinyarada kala hadasho baaqad u dir lahayd bulshada iyo gibiyaan dhalinyarada danseeyo dhalinyarada waxaan leeyahay insha Allah iyo waalidiinta waxaan leeyahay horta ilmuhu hadduu ababintu ka halaabo
khasaarada ugu weyne ninka ruuxa ugu horeeya khasaaraya waa waalidka ninka ugu daran ee khasaaraya ee waa waalidka soo saar daraadeed waxaan leeyahay Allah hadin barakeeye ku dadaala inaad muxuu hayay ilmo waxtar leh soo saartaan oo naafica saa daraadeed dhalinyarada joogtana waxaan insha Allah la dardaarmaya dunida tan aynu ku noolahay waqtina ma ay soo marin kacaan walba ama revolution la sameeyay kulli horyaal waxa uu u xaaso dhalinyaro marka dhalinyaradeenana marka dhanka eegto waa dad muxuu hayay xogaa doorkii baan ka gabnay marka waxaan leenahay doorka dhalinyarada aad baan ugu gabnay marka insha Allah nin walba wuxuu ka fiican yahay talent ah inuu soo bandhigo haduu qoraalka ku fiican yahay qoraalka waliba ani aad waxaan ula talinahay inay buugta aad u akhristaan صح buugta ay aad u akhristaan marka maskaxda ku furmay صح marka dhalinyarada insha Allah ha barakeeye ha akhriga buugan leeyahay buuga akhriya karti aad baad u steelkaasan jecel inaan ku soo xirno guud ahaan waraysigeena maanta barnaamijkana martin ugu ahaa Cabdinuur Derow nin dhalinyara oo buug qoray isla markaana barnaamijkana la falanqeeyay waxaan filayaa in waraysi waxyaalo badan aad ka faanteen soo kale waxaan ka baaqiyaa in soo kale buugiisa aad iibsataan aad akhristaan sida uu sheegana dhalinyaradana soo kalena inay hurdada ka toosaan oo ay xaqriyaan ay wax qoraan dhanka iyo isticmaalka baraha bulshadana in si wanaagsan loo isticmaalayaan ugu baaqleen barnaamijka waxaa isku soo dabaraday halkan si toos in la socodsiinayo aniga Cabdinuur Cali Alxaaji insha Allah intaan dib hoodan kun doono barnaamijkeena xiga waxaan ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh